xaaladda ceerigaabo xiisada Somaliland iyo Soomaaliya TikTok iyo baraha bulshada Soomaalida kacdoona ka socda gudaha Somaliland xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf toddobaadka iyo dhextaalka wararka aniguna walibax barqiye ayno gudagala hadaba wararkii ugu dambeeyay ee ceerigaabo ayaa muujinaya in wada hadaladii nabadeed ee u dhaxeeyay beelaha halkaasi ku nool ay wali socdaan inkastoo ay jiraan arqabado soo waajahay dhinacyada ka wada shaqeynaya nabadda dadaaladan nabadeed ayaa waxaa hogaaminayay odayaal dhaqameedka iyo siyaasiyiin doonaya inay xiisadaha halkaasi ka jira xalliyaan xiisadaha siyaasadeed ee u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya ayaa sii xoogaysanaysay inkastoo ay jireen dadaalo lagu doonayo in la dhameeyo muranka ku saabsan madax banaanida Somaliland ilaa hadda ma jiro heshiis rasmi ah oo labada dhinac ay kala saxeexdeen madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waajahaya cadaadis siyaasadeed oo gudaha Somaliland ah oo ku saabsan sida uu u maareynayo arrimaha gudaha iyo sidii uu u waajahayo arrimaha madax banaanida dhanka kale waxaa jira qayladhaan ka soo baxaysa beelaha iyo siyaasiyiinta ku sugan gudaha Somaliland oo ka cabanaya arrimo la xiriira maamulka iyo dhaqaalaha TikTok iyo baraha bulshada Soomaalida TikTok oo kamid ah baraha bulshada ugu caansan ee Soomaaliya ayaa la sheegay inay sii kordheen isticmaalayaasha Soomaaliyeed toddobaadkan iyada oo lagu arkay dhalinyaro badan oo ku mashquulsan isticmaalka TikTok si ay u muujiyaan hal abuurkooda iyo inay kasbadaan dhaqaale iyaga oo isticmaalaya nidaamka ka mid noqoshada macaamiisha dhalinyaradaasi waxa ay si gaar ah u bartilmaameedsanayaan ganacsiga iyaga oo soo bandhigaya muuqaalo soo jiidasho leh kacdoono ka socda gudaha Somaliland gaar ahaan Hargeysa iyo Booramo waxaa ka socda kacdoono ay dhigayaan dhalinyarada iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ah ee kasoo horjeeda siyaasadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi qaar ka mid ah kooxahan ayaa ku eedeynayay madaxweynaha inuu ku guuldaraystay inuu xal u helo colaadda laascaanood iyo inuu weliba sii kala qaybinayo shacabka Somaliland xisbiga kulmiye oo ah xisbiga talada haya ayaa waajahaya khilaafyo hoose oo gudaha ah oo xisbiga ka taagan gaar ahaan kuwa ku saabsan doorashooyinka socda iyo habka hoggaanka xisbiga xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf xildhibaankan oo horey loo soo eedeeyay ayaa waxaa wali socda baaritaan ku saabsan eedeymaha loo soo jeediyay xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf xildhibaankan oo horey loo soo eedeeyay ayaa waxaa wali socda baaritaan ku saabsan eedeymaha loo soo jeediyay kiiska ayaa ku jira marxalado kala duwan waxaana xeer ilaalintu wali ku howlan tahay sidii loo xoojin lahaa dacwadaha loo haysto warar hoose oo ka soo baxaya maxkamadda ayaa sheegaya in kiiskaasi uu ku jiro marxaladii u dambeysay ee go'aanka dacwadda warbixintaasi waxay si kooban u taabanaysaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee toddobaadkan ka dhacay baraha bulshada la socda qaybaheena dambe